asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta qaali waa nisaa meel walba ay ka joogtaan dunida daafaca caalamka waa wararka arrimaheena bollywoodka maanta iyo bollywoodka maxaa cusub haddii ay tahay markii kugu horeysan soo booqato fadlan furo calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino haddii hore aad nala joogtana waa ku mahadsanta la joogaada muuqaalka meel dargelsi sheerta laagta intaba asxaabta qaaliga waxaan rabaa inaad janalkan aad kicisaan si aan usoo gelin mar walba muuqaal idinka nii anfaco waayo waxaa weye haddii aan muuqaal aan soo geliyo ood muuqaalkaas meel sare aad geysaan anigana waxaan sameynayaa inaan muuqaalo idinka nii anfac mar walba aan soo geliyo naanaa bateekar wuxuu ka hadlay wakhtigiisa kirgeli wuxuu sheegay inuu xubin ka ahay koox falcelin deg deg ah itanto kar steeg ee dalka jilaaga rugcadaaga ah ee naanaa bateekar ayaa dhowaan shaac ka qaaday inuu qayb ka ahay dagaalkii kirgeli taasi oo ah arrin noloshiisa ka mid ah oo si dhif ah looga hadlo jilaagan ayaa si xasuus leh ugu soo muuqday filimkii bihaar ee sanadii 1991 isagoo ku jeliyey Major Bartab Johan balse xiriirkii uu la lahaa ciidamada India ay ka gudbisay shaashadda waraysi oo siiyey wargeyska Dilantop Nana Patekar ayaa wax laga weydiiyey waayihiisa dagaalka Kargili ee India iyo Pakistan 1999 ugu dambeyntii wuxuu sheegay inuu xubin ka ahay kooxda falcelinta degdega ah waa mid ka mid ah ciidamada ugu caansan dalka India ciidamadan oo magacooda ah Idna Sotoho ugu yaraan waxaan u samayn karnaa dalka ayuu yidhi xayeysiin qayb Nana Patekar ayaa sheegay inta uu duuyay filimka asigiyo Akshay Kumar iyo Katrina Kaif oo sankiisa mar ka imaaday dhiig ayagoo ku jira soo dhaweyn filim sameeye Ram Gopal Vikram ayaa shaaca ka qaaday inuu la kulmay Shah Rukh Khan iyo Kamal Hassan oo ay hormuud ka yihiin filimkiisa Gopal Vikram ayaa shaaca ka qaaday inuusan mar walba maskaxda ku hayn Ajay Devgan iyo Viv Abray xilli uu duubiyey filimkiisa Ganges ee 2002 waxa uu sheegay in uusan cid kale ula soo xiriirin Shah Rukh Khan si uu u matalo qaabka filimka ee dunida hoose Don Daud Ibrahim halka uu markii hore doonayay Abhishek Bachchan in uu jilo jilaaga Jyoti Rajan intaa waxaa dheer wuxuu ka fikriyay Kamal Hassan doorkii ugu dambeyntii aaday Munhanal video lagu wadaagay kanaalkiisa YouTube-ka RDF wuxuu dib u eegay dhowr filmaantiisa si la mid ah film sameeyaha ayaa ka hadlay dhowr muuqaal oo muhiim ah oo shirkadda wuxuuna ka hadlay habka jiritaanka mar la weydiiyay in Ajay Devgan uu mar walba noqon doono dooqa koowaad ee doorka Malik RDF wuxuu yidhi hal mar waxaan doonayay Shah Rukh Khan waxaana la kulmay Shah Rukh Khan wuuna faraxsanay ma ogtahay in Sara Ali Khan ay qaraabo la tahay Dilip Kumar Amrita Sin hooyadeeda Ruqsaan Sultan waxay ahayd qof caan ku ah arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxayna xiriir qoyseed la ahayd Dilip Kumar Sara Ali Khan ayaa dayaxa ka baxday maadaama ay dhawaan ogaatay inay qaraabo la tahay jilaaga rugcadaaga ah ee Dilip Kumar waraysiga ugu dambeeyay markii Sara loo soo bandhigay macluumaadkan in qoyskeeda ay dib ugu laabtaan Dilip Kumar oo ay weheliso Rabindra Tagore Sara markii ogaatay middan way yaabtay ayada waraysi lala yeeshay Sara waxaa lagu wargeliyay in ayada hooyadeeda dhanka qoyska uu xiriir la lahayd Dilip Kumar wariyaha ayaa la wadaagay in ayada Ruqsaan Sultan walaasheeda Bikram Bera uu guursaday Nazir Khan oo ay walaalo yihiin aktarka Dilip Kumar Sara ayaa ka dareen celisay waxyigan oo waxay tiri ma garanayo tan waxaan ahay qaraabada Dilip Kumar waana jeclahay Sara ayaa markaas wax laga weydiiyay ayadeeda hooyada Ruqsaan Sultan oo ahayd qof caan ka ah goobaha siyaasadda ee Delhi waad ogtiin ayadii in ay geeriyootay anigoo 9 bilood jir ah marka anigu ma garanayo waxa aan ka ahayn jecel mar laga weydiiyay inay wax ka maqashay iyo in kale ayadeeda Sara Anupam Kher ayaa qalinka ku duugay mahadnaq kal iyo laab ah oo u jeediyay booliska Mumbai markii ay soo qabteen tuugta soo weerartay xafiiskiisa xafiiska Anupam Kher ee Mumbai waxaa soo dhacay tuugo 20 Janaayo ayaa baraha bulshada ugu mahadceliyay booliska soo qabtay tuugada qoraal mahadnaq ah ee uu soo dhigay Instagram-ka jilaagu ku soo qoray mahadnaq kal iyo ah oo u hayo booliska Mumbai ee soo qabtay tuugtii xafiiskayga dhacday